sanduuqan barshiraam waxaan aad arkaysid waa xukunkii Shiva maxkamadda Shivana waxay walaalkaaga ku xukuntay dil toogasho ah sida hadda adiga aad u jeedid maadaama walaalkaa uu kufsaday gabar masaakiin ah gabadhaasina way isdishay dil badalkiisana waa dil waxaana ku soo qoray cadawgaaga Shiva adiga cadawtinimada naga dhaxrisay annaga ayaad walaalkeennii yaraa u dishay adiguna hadda dheeshan baan noo soconaysa aniga adiga maydna mayd baan kugu soo bedelayaa waxaana kaa ballan qaadayaa inaan askartaada halhal u soo dilo markaasaa dheesha aniga adiga naga dhaxaysa si fiican u macaanaysaa ogow Shifaa waqtigan wuxuu joogaa bagwaanka hilibkiisa waa inaad cadcad u soo jarjartaan ninkii ii keena hilibkiisoo jarjaran waxaan siinayaa abaalgud weyn anigu waxaan doonayaa Shifaa maydkiisa barshiraam waxaad ku dhahdaa riyada beenta hawriyoonay ha iska daayo ama se indhaha weyn uu qabo ayaan kala baxayaa gacanahan u saaraya dib dambana wax uma arkayo magacayga oo kaliya ayuu maqlayaa yaa oo ma ciidamadeeda wejigooda ayuu magaciisa ku soo qoray asiga ma adinkii aan idiin diray inaad hilibkiisa cadcad igu keentaan ayuu magaciisa wejigiinna ku soo qoray hadda waxaan noo bilaabanayaa tallaabada ugu horraysa oo dagaalka meydadka dhanna magacayga ayaan ku dul qorayaa xabadahaan ridayana dhawaaqooda magacayga bay sheegayaan maadaaba aad gabadhayda guursata adiga ha moodin inaan adiga weli kaa haray nafsadaada ayaan weli daba taaganahay riyada beenta aad riyoonaysid iska daa nafsadeeda haddaad u baahan tahay waa inaad jid dheer u soo martaa hana moodi maadaama gabadhaada aan qabo inaan ku soo weerari doonin ma garatay war maxaad leedahay Farista Shiva Balshiram aniga waan la socdaa magaalada dabka ka kacaya inaad labadiina ka dambaysaan cadeen aan idinku haynin daraaddeeda ayaan idinkaga aamusanahay laakiin mid ogaada digniinta anigu mar qudha ayaan bixiyaa haddii magaalada falalkan oo kale mar dambe ay ka dhacaana waxaan la socdaa in joornaalada magaalada ay ka soo baxaan magacyadiina safka hore ay ku qoran yihiin isla joornaaladaas ayaa dhacaysa in magacyadiina hoos lagu soo qoro ayagoo yaryar Shiva iyo Balshiram gacanta booliiska ayay ku dhinteen atoornimadiina meeshay ku eg tahay haddii aad foodada magaalada ka dayn weysaan meel xun ayaad ku dhiman doontaan iska taga tali waxaad ogaataa ugaarsatada shabeelku way ka baqan laakiin shabeelka maya ugaarsatada markay ugaarsi aadayaan hub ayay qaataan laakiin shabeelka sidiisaba waa hub shabeelka ninkii isku daya inuu ugaarsadana isagaaba ugaarsanaya shabeel laakiin ugaarsadaha dhib kasta ha ku qaado shabeelka wuu qabtaa sheekadaas iska daa marka hore caddayn la imaa wadiga kadib ayaad qaban kartaa Shiva maxaa yeelay Shiva wuxuu ka daran yahay shabeelka ugu weyn ee duurka jooga igralaw inaan ku baarano way fasante
falkan aad samaynaysid aniga kama xumin maxaa yeelay aniga uma imaan inaan adiga ku sharfo ama aan ku ciseeyo ubaxan cadna waxaan kugu keenay inaan ku ilowno cadowtinimada naga dhaxayso si aan ku saaxiibno labadeena ayaan kugu imaaday barshiraam wiilkaaga rohid ayaan rabaa walaasheeda inuu guursado buuja waa walaasheeda baartiina waa hooyadeeda barshiraam wax walba aragtid iga codso laakiin arooskaan ogolaaw maxaa yeelay hooyadii ayaan ballan ka soo qaaday wuuna dhintay shibaagii u noolaan jiray cadowtinimadaada adigan iska ilow cadowtinimada maanta gurigaaga waxaa i keenay labadaas qofood oo isjecel guurkooda inaad ogolaato labadaas mustaqbalkood ayaan kaa soo doontay malagaagaad soo doonatay barsilaam walaalkiisii yaraa oo aad dishay ciilkiisii ayuu kuu qabaa dhiiggaaga ayaa weli ii dhadhamaya aniga waxaad leedahay cadowtinimada iska ilow war mar walba waad iga guulaysan jirtay ayaad leedahay low ciidamadaydana waad gubi jirtay ayaad leedahay low badeecadaydana waad qaadan jirtay ayaad leedahay low waxaa soo rafaad adigoo u dhigay ayaad gabadhaydii anigoo taagan ayaad horteeda ku kaxaysatay markaasaad leedahay aniga ilow war sharaftaad aniga iga qaaday ma ii soo celin kartaa qiimeedii war gabadhii aad horteeda ku kaxaysato anigaan dhalay miyaad ii soo celinaysaa intaasoo dhaawacaad ii geysatay miyaad ii soo celin kartaa adiga dabka qalbigay ku shidanna miyaad demi kartaa adiga dabkaa qalbigay ka baxaya wuxuu demi karaa adiga markii dab lagugu shido maalintaas ayuu demi karaa dabka qalbigay ku shidan aniga khasaaradeydu waxaan ku ilmaami karaa dambastaada markaan arko aniga haddana maya fakri kor fiiri maanta anigaad gacanay u jirtaa meydkaaga ayaa halkaa laga qaadayaa sidaa la soco barshiraam maanta ayaan ogaaday nacasnimadaada waxaan ahaaba waad iga guulaysan jirtay laakiin maanta shabaqa ayaad ku jirtaa shabaqa qofka ku jira ma ogay aniga laakiin fiyoorahan wato waxaa ku jira bambo rimodkiisana gacanteyda ku jirta hay su'aalin bay kula kacin bambadaan la tubiyin waxaan kaloo kuu sheegaa wiilkaaga iyo walaasheeda guurkooda wuxuu dhacayaa bishaan dhexdeeda sidaa uu la socdo haddii markaa nafta ay kugu jirto arooska waad ka soo qaybgeli kartaa